بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كلمتي هراء اللبات وهي قصة سنة قابك لوgu faa'iideysto jadwalka iyo nidaamka uu ku soconayo jadwalku inuu soo sheegnay qofka maalin walba salaadi laga bilaabo salaada waqtigeeda in la ilaaliyo sunnooyinkeeda la ilaaliyo wardigii ka dambeey nabiga kaleey salaatu salaam joogteen jiray la ilaaliyo faa'iidooyinka laga helo iyo soonkii sunnadiisa in la ilaaliyo ha noqdo kii maxay isniintii khamiista ama ma aha kii kale oo ayaamul biidka iyo waxyaalaha fududeyn kara go-aan qaadashada iyo wixii lamid ah ayaynu soo qaadanay insha allahu tacaala kelimadan waxaan kusoo gabagabaynayaa kelimaadkii maada bacda ramadaan aynu ugu talagalnay oo aan rajaynayno insha allahu tacala inaan ka faa'iidaysano aniguna aan ka faa'iidaysto wixii aan sheego waxaan jecel lahay haddii ilaahay idmo ilahay aan ka baray inuu ilaahay i fududeeyana inaan tadbiiqiyo waxaan rajaynayaa dad badan inay tadbiiqin doonaan biidn illahi tacaala dad badan ba horeba loo tajribeeyey oo waa la tijaabiyey dad badan baa ku guulaystay isbedel badan iyo faa'iidooyin badan baa laga dareemay wax hadda kow la tijaabinaya keliya ma ahee wax hore loo tijaabiyey waay marka insha allah waan joogtayn doonaa biidn illahi tacaala qofkaan hore u bilaabina biidn illahi taala ha bilaabo waa in halkaan ka sheegi doonaa wardi maalmeedka bileedka usbuuceedka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu akrin jiray wardi markaan leeyahay dad qaar waxa laga yahay in wax kale u qaataan awraad hore la akrin jiray qaarna waxay ahaayeen kuwa nabiga ka sugan kuwana waxa way kuwa nabiga ka sugnay sallallahu alayhi wasallam wardigan muslimka loogu talagalay bishii uu ku xisaabtamay maalintii uu ku xisaabtamay isbuucii uu ku xisaabtamay waa mid nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam nabiga aan ka tagi jirin sallallahu alayhi wasallam ayaan ku soo qaadan doonaa biidn illahi tacaala waxaan ku bilaabaynaa adkaarta ama wardiga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu joogtayn jiray waxaana aynu ogaanaynaa adkaarta la laazima waa wadada jannada la hayo wey qofka carabkiisa ayaa la qabsanaya dikrigu la qabsanaya adkaartu la qabsanaya waxa laga yaab hadhowda khaatimadiis wuxuu la qabsaday carabkiisu joogtayn jiray inuu u dambeeyo kelimada ugu dambaysa tawxiidka ay noqoto laa ilaaha illa allah ay noqoto sidaas ilaahay khaatimada hagaajiyo jannadiisa uu ku galo waa muhiim bedelkii aad sheeko badan qosol badan dad qaar waxaa ilaahay ku imtixaamay inay dadku usoo alifaan wax lagu qoslo hadalkaadi inuu noqdo intiisa badan wardiga iyo adkaarta inay noqoto waa muhiim jiddan hadallada badan la iska daayo qofka hadal gaaban soomaalida way duraan qofka hadal badanna waxaa la yihahdaa aftaan baa la yihahdaa yaa qofka inuu hadlay rabaan waxaa weye marka afka in laga adkaado carabkaan haddaan laga adkaanin xilligan hadda la jooga waxaa weeyaan waxaa dhacday culimaduna ay sheegeen waxaa dhacday xadiidkii ay ka qaateen istimaalka xadiidka caaisha xadiidkii ay maxay ahayd nabiga calayh salatu salaam ay weydiisay amaashaan aan samaynayo ilaahayna waafajiyay salaadan iyo zakadan iyo soonkan iyo maxay ahayd soo wax nooma tarayaan xadiidka lafdiga macnihiisa saas u ahaa su-aashaasay weydiisay markaas nabigu muxuu yidhi sal ly slam kelimuu yidhi muxuu yidhi waa qofkii la taga buu yidhi qofkii la yimaada aakhiro macneed maxaa laga fahmayaa dad badan acmaasha badan intay sameeyaan adduunkay ku tirtirayaan waa la sii shidayaa wax tirtir maayo weyn maxaa waxa ugu horey tirtirayo waan carabkaadi weyn qofkii salaadu tukaday salaaddii abar waa dad kale ayaa qaadanay waa saas weyn sadaqo ula baxay dad kale qaadanay carabkan aan ka falannahay ayaa cibaadadii eber ka dhigay tirtiray waa inaan ka adkaana nabiga alay slam haddii lala yimaado u yidhi waay dad qaar hadday la yimaadaan maxaa dhacay layna loo soo gelaya kii u xantay kii u aflagaadeeyey kii u caayay ayaa layn usoo galay hadda marka layn haddii loo soo galo marka waxba lama tegin waa laga wada qaadanaya dembiyadooda dusha laga saaraya marka adkaarta iyo wardiga inaan joogtayno waa jannada wadadeedii waay waxaan halkaan ka sheegi doona haddii ilaaha idmo shan wardiga shanta keliya ma aha laakiin shanta khasaa'is gaar ay leeyihiinoo nabiga joogtayn jiray sala allahu alayh wasalam si gaara ayuu danayn jiray si gaara ayuu joogtayn jiray sala allahu calayhi wasalam kow shantaas oo min boqol ah ayaan insha allahu tacala aan sheegi doonaa iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin mid walba jadwalkiisa ayaan sheegi doonaa kow waan uga horaysiinaynaa number one istikfaartu yaan la iloobin nabigu wardigiisay ahayd
ugu yaraan 70 jeer oo maalin walba ilaahay u noqon jiray istighfaartu la imaan jiray ama 100 afkiisa laga haya 100 baan ka dhigaynaa faa'iido ilaahay maxaa kamid ah inaad istighfaarta maalin walba aad joogto aadan ka tagin adigoo socdaata akhri farahaadii ku akhri hadda waxa soo baxay bahal electroniga farta la gashto soo galata kaas dhimala haddii xisaabta faraad ku xisaabi karto faraha kaaga fiican haddii faraha ay kaa lumayaan oo aad xisaabtii aan dabtin karinna farta iska gasho dhib mala culimadu wax badan bay ka hadleen laakiin culimada qaar waxay yidhahdeen qofka haddii xisaabtii baan u hagaagayn ilaa bahalkaas mooyaan oon istutusna aanan ka ahayn wax banaanka yaalan aan ahayn waxa wey waa caadi waa la qaadan karaa bay yidhahdeen culimada qaar waxay gabi ahaanba farahaas ayaa loogu talagalay tasbiixa bay leeyihin adkaarta joogtaynta istikfaarta faa'iidooyinkeed waxa kamid ah amar alle ayaad ajiibtay faqultu istakfiruu rabbakum amarka allah ayaad qaatay dembi dhaaf weydiista allah waa amar weyn asbaabta risqiga aad ku helayso weyn risqiga ilaahay waasac uu kaaga dhigay haddii aad joogtayso risqi kama fikiraysid waa inaad aamintaa laakiin asbaabta jannada lagu galo weyn asbaabta dembi dhaafka iyo dembiyada lagaaga tirtiro weyn darajaad sare ayaad yeelanaysaa bacdal markaad dhimato kadib darajaad sare adigoo gaaray waad arki doontaa istikfaartaad ku gaartay cuquubada iyo cadaabka ayaa lagaaga badbaadinaya aayadaa sheegay inta dadka istikfaarsanayaan ilaahay ma cadaabo waa sabab qalbigaada ilaahay nadiif uu ka dhigay qalbi saliimaad la imaanaysa haddii istikfaar aad laazimayso sidoo kale caruuraan hadday ku hayso ilahay caruur buu kugu siinayaa istikfaarta caruur bu ilahay kugu siinayaa sidoo kale caafimaad iyo awoodu ilahay ku siinaya haddii caafimaad la-aan ay ku hayso xanuuno ay ku hayaan istikfaarta daa'im boqolkaas ha ka tegin maalin maalmaha ka mid a xasanulbasri ayaa nin usoo galay wuxuu yidhi imaamow waxaad ii dardaarantaa waxaad ii sheegtaa wax roob aan ku helna ii sheeg buu yidhi istikfaarta la imaw buu yidhi abaar baa dhalay roob istikfaarta la imaw hadda nin kale soo galay wuxuu yidhi waxaad ii sheegtaa xaaskii ayaa ii dhali waayay xaaska waa ii dhali weyday caruur ma haysano istikfaarta la imaw buu yidhi nin kale usoo galay saddexaad markaasa wuxuu yidhi faqiirtinimaan dareemayaa sawalnimaan dareemayaa istikfaarta la imaw buu yidhi dadki isaga la joogaya su-aal weydi waxay yihahdeen waan yaabnay yaa imaam qof walba ku yimaada istikfaartu baad u sheegtay maxaa dhacay aayad u akriya marka aayadda faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaaran waa dembi dhaafkii roobkii maalkii iyo caruurtii intaba aayadda sheegtay nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii uu joogay dadka ammaan bay ahaayeen oo maa kaana allahu liyucadiba wa anta fiihim baa leyihi ammaan kale ayaa jiray nabiga markuu dhintay sal alla alay wasalam maxay tahay dadka inta istikfaarsanayn ilaahay wuu badbaadinayaa cadaabku ka badbaadinaya aan daa'imno marka istikfaarta aan daa'imno yaanana ka tegin maalin walba qof walba naftiisa kula ballamo maalin walba istikfaarta astaqfirullah fudud weyn 100 jeer maxaa ku xiga istikfaarta markaad la timaado ilaahay bari ilaahay tuub ducooyinka 3 duca baan meeshaan aan kusoo qoray 3da duca midi waxaad weydiisanaysa ilaahay magiisa aad ku weydiisanaysaa inuu ilaahay dambigaa dhaafo kan labaad nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu sheegay qofkii xadiidka ducadaas allahuma ini asaluka marka istikfaarta la timaadid fariiso ducadan ku ducayso allahuma ini asaluka ya allah biannaka alwaaxid alaxad asamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii dunuubii inaka anta algafur rahim maadaama istikfaar la timid ducadii istikfaarta oo ah dembi dhaafka weydiisashada ayaad la imaanaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidku soo galay nin baa soo galay salaad buu tukaday isagoo ataxsanay ducadaan u akriyey ducada markuu akriy nabiga alayhi salatu slam markuu maqlay dembigiis waa loo dhaafay 3 jeer buu ku celceliyey marka istikfaarta markaan la nimaano ducadaas inaan la nimaano sidoo kale duco labaad baan kugu darayaa allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira walaa yakfir dunuuba ilaa anta faغfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur raxiim ducadaasina ku ducayso ilaahu naftaydu waan dulmiyey dulmi weyn baan galay dembiyadana ma dhaaf adi un baa dhaafa ilahu dembigaygu wuu badan yahay ilahu dembigayga dhaaf ilahu i naxriiso ilahu i cafi ilahu gafuur raxiim baa tahay duca waa saxiixa weyn labadaas ku ducayso ha iloobin waalidkaadin u ducay maxaad leedahay rabbi اغfir lii waliwaalidaya warxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira taana ku dar 3daas duca markii istikfaarta la timaad 100ka 3dan duca ku ducayso waa haddii jaanis aad u fariisto qof u fariistay baa 3daas duca iyo aad istikfaartii isla raadin kara waay
wardiga labaad tasbiix aan daa'imayna tasbiixa 100 jeer subhanallah inaan la dimaano tasbiixa siiqooyinkiisu way kala duwan yihiin waxaad dhihi karta subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim waa kala dhihi karta subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimaat waa kala dhihi karta subhanallahi walhamdulillahi wallahi ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah intaba waa tasbiix dhihi karta midka doontid dooro midka gaaban subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim inaan 100 jeer aan ka akhrino maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu qofkiinan miyuu ka caajisaya miyuusan karin maalintii 1000 xasanaad inuu la yimaado way weydiiyeen sidee buu la imaanayaa markaasuu yiri 100 jeer subhanallah imaanaya buu yiri 1000 xasanaad baa loo qoraya dambigiisa 1000 ana waa la tirtiraya bal fiiradi yaa heli kara ayadan yaanan ka tegin 100 ka tasbiih subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim joogta aan ka dhigano wardi maalmeed aan ka dhigano aanan ka tegin wardiga saddexaad waxaan joogtaynaynaa mudaawamata qiraa'ati laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaan joogtaynaynaa saddexdaas waa inaan joogtaynaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir waa qaybtii saddexaad labadii hore istikfaartii tasbiixa kan ku saddexeey 100 jeer 10 in la akhriyo galabkii iyo casarkii in 10 la akhriyo waa wardigii adkaaru sabah wal masaa kan waa wardi gaara ka dhigo 100 jeer nabiga ay ka soo arortay sallallahu alayhi wasallam nabiga muxuu yiri qofkii laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadiir akhriya maalintii 100 jeer akhriya wardi ka dhigta waxa uu la mid yahay qof horeeyay 10 qof adoona qof horeeyay maana way u dhigantaa haddii la fiirado adoon ma jireen 10 neef geela qof sadaqeeyay macnaheedu ay tahay $10,000 qof sadaqaystay ajarkeedu helay ka badan waa qiyaasun taas sidoo kale 100 xasanaad waa loo qoraa oo gaar ah sidoo kale 100 dambina waa laga tirtiraya sidoo kale shaytaanka iyo waswaasna ilaahay kaga ilaalinaya waxay u noqonayaan xirsiir bay u noqonayaan sidoo kale qaybta afraad qof isaga ka fadli badan ma imaan ilaa qof intuu la yimid ama ka badan la yimid mooyaan fiir ajarka inta leeg aan joogtayna maalinta hooga waqti qaadanaytaan istighfaarti iyo tasbiix kale ma waqti bay qaadanaysaa inaad u fariisto waqti xilli aad leedahay jaanis aad leedahay 100 jeer taqriiban waa la qiyaashan 10 daqiiqo ama 10 daqiiqo ay qaadanaysaa afarta shay wax leeli karma ayadana wardiga aan ka dhigano insha Allah taala qodobka afraad inaan 100 jeer aan akhrino la hawla wala quwwata illa billah 100 siiqo oo toos 100 dhahday nabiga calayhi salaam afkiisi lagama hayo sallallahu alayhi wasallam laakiin nabigu muxuu yiri badiya buu yiri intaad akhrin kartaan akhriya 100 ka dhigano iyo ka badan ba dhimala nabiga calayhi salaam yiri la hawla wala quwwata illa billah miyaan idin tusaabu yiri keedka jannada kamida natus bay yiraahdeen la hawla wala quwwata illa billah hadithki muttafaqa sidoo kale nabigu muxuu yiri calayhi salaam badiya buu yiri inaad tirahdaan la hawla wala quwwata illa ma yalay fa inna kanzun min kunuzil janna aan culimadeeni salafkii iyo aad bay u akhrin jireen sheekh Uthaymin rahimahullah wuxuu yiri hadii shay uu ku adkaado aad ka caajisto waxa tirada bari la hawla wala quwwata illa billah ma yalay ilaahay uu ku caawinaya kelimadaas la hawla wala quwwata illa billah sidoo kale hadii aad doontid ilaahay inuu ku caawiyo shay kugu adkaaday waxa tirada la hawla wala quwwata illa billah inaan laazimno la hawla wala quwwata illa billah albaabad badan xirmay baa ku furmay meela oo la gali waayay culays ka yimid wax barashaan noqoto ama shaqaan noqoto ama caafimaad noqoto ayaa ku furmay afkeenan yana ka daalin la hawla wala quwwata illa billah 100 ya ka badan maraheedii iyo thimaarteedu waan heli doonaa adduunyo aakhiraba ajar badanna way leedahay kaana waa kii afraad 100 ki afraad weyn 100 ku xiga salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam adkaar sabah wal masaa 10 loogu talagalay 100 ka dhigo maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga waxaad doorataa inaad akhrisaa ibraahimida midka ataad ku jira allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ka dooro halkii mar qofkii ku sallay nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu yiri ilaahay ba 10 jeer u naxariisanay malaa'ikta ayaa naxariis dami dhaaf weydiinayso sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam hadiidku wuxuu leeyahay qofkii subxii 10 jeer igu salliya galabkii 10 jeer igu salliya shafaacadayda aakhira waa u helayaa wuri shafaacada aakhira ma taqaanaade waa maalin dadka ay dhiban yihiin oo gargaar ay u baahan yihiin ayuu nabiga calayhi salaatu shafaacadiisa aad helaysaa ilaahay waxa weeye wax badan oo kaaga cafinaya maalinta qiyaama waan u baahannahay salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan joogtayna subxii galabkii 10 waa laazim waa taas adkaaru sabah wal masaa lagama tagi kar kana waa wardi ahaan 100 maalintii inaan akhrino
qofkii si daacadnimo hal mar igu saliya sallallahu alayhi wasallam nabi muxuu yidhi 10 jeer ilaahay u naxariisanaya dembigiisa ilaahay u dhaafaya 10 darjo ilaahay kor u qaadaya 10 hasanaad ma loo qoraya dembiye badan waa laga tirtiraya waa 10 hal mar qofkii ugu saliya buu yidhi 100 marka bal ka war 100 nabiga alayhi salaatu wasalaam maalmaha kamid ah Ubay ibn Ka'b salliga waxyaalaha murugada ilaahay kaga qaadaya dembigaad ilaahay ku dhaafaya salliga inaan badino Ubay ibn Ka'b ayaa wuxuu yidhi ya rasuulallah anigu salliga aan kugu salin waan badiyaa buu yidhi waan badiyaa marka maxaan akhriyaa buu yidhi oo inta seen u akhriyaa inta doontid buu yidhi mar labaad buu yidhi haddii rubuc aan akhriya ka wan buu yidhi salaadayda saddex afar meel hal meel haddaan ku akhriyo inta doontid buu yidhi ziyaadi haddaad ziyaadisin waa taasa ku khayr badan nis buu yidhi inta doontid ziyaadi buu yidhi marka fathuluthayn buu yidhi su-aalaha markuu weydiiyey inta markaad samayso muxuu yidhi waxaan idhi buu yidhi ajcalu laka salaatii kullaha macnaheedu waxay tahay waxaa weeyaan salaadayda salligan ku badinaya ama salliga aan kugu salina ayaan badinaya haddaba haddasaa yeeshid buu yidhi ilaahay wuu kaa kaafinayaa murugo kasta ilaahay uu kuu fududaynaya wax alla wixii kaa murjin lahaa buu ilaahay kaaga difaacaya dembigaadna ilaahay wuu dhaafaya nabiga alayhi salatu wasalaam saas ugu jawaabay wardigaas wardi la dhaafi kara ma aha salliga nabiga alayhi salaatu wasalaam qaybta ugu dambaysa qiyaamuleyl habeenkii inaan soo kacno iyo inaan maxay ahayd ka tegitaankiisa aan iska ilaalino in habeenkiina aan soo kacno nabiga alayhi salaatu wasalaam aad buu uga hadlay salaatuleylka waxyaalaha kugu cawi kara wax ka mid ah salaatuleyl qiimaha uli horta akhri culimadu waxay ka yidhahdeen dhegeyso go-aanna qaado waayo ramadaanku waad soo kacaysay waa se dhammaan waan soo kacaynay haddana waa inugu cuslaatay go-aan laaweyn go-aan waa in la qaataa adakaaru noom waa in la akriyaa shayaadiinta qoorta kaa heri lahayd ayay kaa ilaalinaysaa markaad seexanayso cunto badan ha isku cunin qof cunto badan cunay ma soo kici karo qayluushiga maalintii haddii hogay aad qayluushan karto in rabada aad dejin karto aad seexan karto haddii maalintii aad hesho ayadana way kuu fududaynaysaa dembiga in laga fogaadana way kuu fududaynaya qalbigaad saliim inaad ka dhigto qof inaadan uqdada aad u qaadin aad wax u qaadin ayadana way kuu fududaynaysaa salaatuleilka inaad usoo kacdo salaatuleilka waxaa weeye nabiga alayh salatu salaam uu ka hadlay in badan buu ka hadlay habeenkii saacad baa ku jirta uu yidhi odoonka aan weydiisanayn shay ilaa ilaahay uu siinay iyo sidoo kale allah habeenkii thuluthul akhiir waxaa weeyaan uu leeyahay wuu soo degay sababtin uu soo degay yaa ibaryahay oo aan ka ajiibahay yaa waxay weydiisan aan siinahay taana waxaa weye faa'iidadaasi fiiri odoonka li ugu dhowaan badan yahay odoonka oo rabbigiisa ugu dhawaan markuu sujuudsan yahay habeenka in la sujuudo dadka ay jiifaan sidoo kale allah adoonkiisa wuu usoo dhawaan sababtin uu soo degayaa fii jawfi leyl haddii aad awoodidba nabiga alayh salat slam wuxuu yidhi inaad ka mid noqoto kuwa ilahay hoose habeenkii saacaddaasi ka mid noqo u yidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam waa dhaqankii dadka saaliyiinta ilaahay baa loogu dhawaadaa dembigu kaa ilaaliyaa dembiyada lagu dhaafaa cudurada jirkaadi ku jira ayuu ilahay kaaga saaraya do-adana habeenkaasa la aqbalaya habeenkia la aqbalaya qaybta ugu dambaysa aan kusoo gabagabaynayno waxay noqonaysaa jadwalka qur-aanka inaan khatinno khatinkii qur-aanka ramadaanka aan wadnay inaan sii wadno ramadaanka wixii aan wadnay oo qur-aanka muhiim jiddan nabiga alayh salatu wasalaam ilahay ahlkiisa ka mid noqo dadka qur-aanka akriya ahlu qur-aanka wa ahlulahi wa khaasatuhu weeyaan sidoo kale hal haraf qofkii akriya 10 xasanaad buu leeyahay 10 xasanaad buu aayadan waxay sheegtay 3 tijaar inaysan khasaarin qof qur-aanka akriya ma khasaaro qof salaada daa'ima qofka wax baxsada sadaqada in alladhina yatluna kitab allahi wa qamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya sadaqadi soo jamcisa aayad yarjuna tijaratan lan tabur qofkii jadwal rabaa haddii dadka masaajidaha jamaacada ku waajibtay salaad walba ka hor ama kadib inaad 4 safaad akhriso maalinta juz bay ku noqonay 5 salaadood bishii hal mar baad khatimaysaa waa wardi yar iska fudud weyn haddaba waad ogaanaysaa halkii salaad aad 4 safaad akhrisay 4 safha halkii safha meeqa ajar waay ajarkeeda meeqa waay 5,000 ajar weyn leanna halkii safha waa la tiri waa la tijaabiyey annaga tijaabinay halkii safha 500 xaraf ama 510 520 ama 480 490 waa 500 celcelis 500 xaraf toban ku dhufo 5,000 ajar weyn qofkii 20 akhriya 20 safha juz akhriya ajarka intuu leeyahay 100,000 ajar weyn inta soo qiyaas qaado laba juz akhriso ku qiyaas qaado marka inaad maalintiiba juz aad akhriso salaadiiba 4 bog aad akhriso wax fudud weyn oo aan qaadanayno 10 daqiiqo ka yar marka wardigaas inaan yeelano waa muhiim jiddan waxaan kusoo gabagabaynayaa qur-aan in la akhriyo maxaa laga faa'iideeyaa wax badan laga faa'iideeyaa ajarkaasi
xusuustaadii ayaa adkaanayso, xusuus baad yeelanaysaa, ilowshada ayuu ilaahay kaaga baabi'inaya, qalbigaada wuu degayaa, baraka risq ayaad helaysaa, jannada ayaad ku guulaysanaysaa. haddii aad saa ku dhimato adigo qur-aanka saa u joogtayna farxad iyo sacaado iyo liibaan ayaad ku noolaanaysaa. murugadu ilahay uu kaa ilaalinaya. dadka ciiriga fikirka oo fikira qur-aan akhriska ku yar, cuduro badan oo la bixin waayo ilaahay uu kaaga caafinaya. waxaad dareemaysaa naftaada awoodeedii, cibaadadina awood u leedahay ayaad dareemaysaa, ilahay raalli ahaashihiisina waad ku helaysaa. sidoo kale waxaad ku gaaraysaa fahan iyo dersi in la weelayo qur-aan akhriskiisa. sidoo kale qur-aanka aakhira wuu ku dacwoonaya, aakhirana waa lagu badbaadaya. marka waa in qur-aankaasna aan joogtayna. qur-aanku waa wardigii lixaad weyn, istikfaarta, tasbiixa, laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu alxamdu laa xawla walaa quwata ila billah. shantii boqolka aan soo salliga nabiga alayh salatu slam boqol aan soo sheegnay, qur-aankana ku darso. hada wabillahi tawfiiq. ilahay anugu anfaco, kuwii dhaqangeliyey allaha inaga dhigo, allah inoo fududeeyo. dhammaanba waxaa weeye annagoo saa u ogaanay, anigoo sheegay iyo dadkii dhegaystayba xujo ay noqonayaana allah inoo fududeeyo. waana joogtaynayna insha allahu taala, allah inoo fududeeyo. nafteeni naga adkaatay aan ka adkaano, aan joogtayno. waa wax fudud weeyaan, waqtiga aan u kala maarayno. haddii aad shaqaad ku jirto waqti khaasa, si adduunka ma dhammaanayo, sidaasunbu ahaana mashquulkuu sii badanaya. jazakum allahu khayran wbaaraka allah fiikum, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.